سؤال إنه أوجيني ورد أوجين بالنسينيا إمك مغرب كيم كذا يرد بديد لواتن من الكور يا أي دجال كسوق قاعدين دب مرلبات بيرتا ده مرلبات إمك ساعدنا أن جوجنا دجال كيو الصعدة ساعدنا أن جوجنا أنتي جور تاي أنتينا حريه فندال كلا دعين وولي ولا جاري كرا وهدي شعبك كنول ستي أي كعان ويولا له الجرجار ويديستان وجنع ستدو أي جرب قشو ويدليرتو كعدو ويدوكو قد دفاعته طانتا إن ونركينا إن دجالك وقوي كصعبي شعب يرو ترير أيام ما درتي ومضم ملايين أي دجال يسكوهين دجال كان محي رجع أي أكرين إنه يجلب دجان وحي عيد يسكو دومني يديه ويجرته. بقول ما صرت الموضوع ده لك المقطعي أنا دوريسي كان مسيسو وقرين واحد بالله فايسا بقافين عن نجسي واحد كود كاي دجال كيشاي ومامل كعنفرت وكسوق على قلبيت كقبل كسيتي محاكي ناس يعني مركل عنفرت وين رسوقات بسم الله الرحمن الرحيم أرتزادو وقتين شلي طوله صلاة دي أرورنمو هي مامل كعنفرتو أي قلبيت كسيتي جارهان دين أي كسوق هذا دجال بلارن دجال كاس أو ماشي حقوق أي صارتها هاي بيرتا حاج عمر دبديد مغركي مغرباشة إيو يدو سيدا أولي حسي الله يمشى بون ليداهو حلقا صف بلارن بوها دجال كو دجال كاس وحوها ku daba socda dagaaladii ay horay ugu qabsatay galbeedka city gaar ahaan cadaytu garbaciise cundufo iyo dan la helay xilliga ujeedadoodu wuxuu ahaa in ay maadaragtay ballantii ay qaadeen ahayd inay dhammaan galbeedka city ay la wareegi doonaan inay hirgeliyaan iyay ahayd ballantii ay qaadeen iyay maadartay fulinayeen dagaalka hadda qaabku u dhacayna waxaa weeye way soo weerartameen dadkii oo hurday soo weerartameen faa'iidadeed dhib way geysteen hase ahaatee way ku jabeen ciidamada gaar ahaan soomaalida liyu booliiska ayaa si adag u jabiyey si adag ayaa maadaragtay ay meesha ugu jabeen ku dhinteen inkastoo muddo ay haysteen dagaalkii ay soo qaadeen lagu qaaday shalay maqribkii waa lagu jabiyey waana laga eriyay dhulkii lagana saaray inkastoo meelo kaleeto sida iminka moqorbaashe ay weli ay sii joogeen ay ka sii wadwadeen wax xilligaa dagaalkaas qaabkaabuu u dhacay dadka dagaalkaas soo abaabulayna waxa weeyaan oo qura ma aha dowlad deegaanka cafarta un maaha dowlad deegaanka cafarta waxa ay garab ka heshay niman kaleeto deegaan kaleeto oo Ethiopia kamida ayay garab ka heshay xilliga in dagaaladii horeete dowladda Ethiopia yaa hub badan siisay dowladda Eritrea hub badan bay siisay marka maadaama dagaalkii waqooyigu socday sidaas loo hubeeyo hubka waxa loo siiyay inay dagaalka ay ku qaadaan waqooyiga Ethiopia hase ahaatee wixii la siiyay ee dagaalka halka intay la tagi lahaayeen ayay ku soo jeediyeen
shacabkii xoolo dhaqatada ahaa ee Soomaaliyeed iyo shacabkii kale magaalooyinka deganaa ee ganacsanayay ee reerahoodu nabad ahaayeen taas taabay ahayd tan maantana waxaa la odhan karaa maadaama malaha heshiis laga gaadhay yaa la odhan karaa in heshiis laga gaadhay maad aragtay waqooyiga Itoobiya iyay haddana kol labaad iyagoo horeyna u sii ballan qaaday inay dhulka ay hantiyaan gobolka galbeedka gobolka City iyay dagaalka u soo qaadeen kii shalay way ku jabeen sidaa bay ahayd maanta dhulku nabad buu ahaa iminka saacadan aan nila hadlayo iyaan dee su-aalaad inugaad ogeyn iyo waraad ogeyn baan nisiinayaa iminka maqribkii imkadan yar dabadeed 20 minit ka hor yaa ay dagaal ku soo qaadeen dib mar labaad beerta dee mar labaad iminka saacaddaa aan joogno dagaalkii wuu socdaa saacaddaa aan joogno dagaalkii wuu socdaa meelo kalena wuu ka socdaa in siyaasad kaleeto ka cabsiina iyona intay baabuuro badan soo kaxayseen baabuuradii ay ciidamada ku soo dejiyeen iyay magaaladii qaraf iyay tiriigadii sidaa ugu soo iftiimiyeen iminkoo ku iftiinsan saacaddaa nila joogo oo dadkii baa lagaga nixinayaa oo yacni dee juud maajuud baa lagu soo galay bay leeyihiin laakiin diyaar baa loo yahay dagaalkii shalay sidaa buu ahaa kan maanteed ogeyno aniga nii sheegaya welideed wixii ka soo baxay warkeyga ma hayne wuu socdaa kii shalayse aad ba u dhimatay innagana geesiyowgii difaaca dhulkooga u joogay in badan qaar baa ku geeriyooday qaarna way ku dhaawacmeen kuwa ku geeriyoodana waa shuhadaa allah u naxariisto samir iyo iimaanna allah ka siiyo dadkii ay ka baxeen iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed maad aragtay kuwa dhaawacana allah u boogadayo xilligaa taas sidaa bay ahayd aad baad u mahadsantahay canfartu waxay la wareegtay magaalooyin ku deedsanaa laamiga isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya ee galbeedka gobolka City ilaa haddana ma jiraan wax tallaabo ah oo la qaaday hadday tahay dhanka maamulka deegaanka iyo kan federaalka haddaba sidee u aragtaa arrinta iyada horta mid waa in la fahmaa dhulka ay cafartu la wareegtay dowladda Itoobiya ayaa cafarta la wada in ciidamo badan oo lagu soo tababaray dhulka maad aragtay Eritreana way jiraan oo iyaguna dana gaara kale in maad aragtay deegaanka ummadii lahayd laga safeeyo oo ciidamadaas iyo in dowladda Itoobiya oo iska og iyaa maad aragtay dagaalkaas uu sidaa u dhacay dee dowladda Itoobiya iyadaaba ogey waxay garabsiin baa meeshii jirta hadday tahay dowladda Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida hoosaasiis badan bay sameeyeen nimankii ciidamada xukumayay baa raggii oo maad aragtay ummadii oo lala dagaalamay oo shacabkii oo la laynayo iyo ciidamada liyuga meesha fadhiya la odhanayay ha la hadlina ha gargaarina maad aragtay ha la dagaalamina ku daaya haddana dagaaladii oo shacabkii reer miyigii oo la weerarayo oo reer miyiga isdifaaciyaan iyay haddana ku daawanayeen intaa waxaa sii dheer hoosaasiis badan baa dhacay dowlad deegaanka Soomaalidu maad aragtay way u fudaydisay dhulkaas in ay cafartu la wareegto taasna waa sidaa qaabkii hore wax u dhaceen waa qaabka bal waxaad si guud noogu sheegtaa xaalka galbeedka City waxaad ku saalaadin lahayd adigu xaalka galbeedka City hadda wallahi xaalka galbeedka City waxa weeyaan maanta dee duulaankii lagu soo qaaday hore ku ka sii xoog weyn oo hub ka sii badan bay wataan
raggaasina waa kay ballan qaadeen inaynan joogsanayn dee waxa weeyaan maanta waxay u taallaa shacabka ku nool galbeedka city iyo shacabka ku nool city shacabka soomaaliyeed intaba waxa u taalla in ay dhulkooga ay daafacdaan xilligaa xaaladdan soo socoteen arkayn waa xaalad dagaal waa xaalad dhulqabsi waa xaalad ummadda reer miyiga iyo dadka meesha degan arrin ka itaal weyn arrin ka badan xoog maad aragtay daddee wata maxaan ku dhahay hub aanan maanta dowlad maahin ay shacab haysan weeyaan maanta nimanka cafareed ee kililkoogii iyo ciidamadoodu markaa waxaa meesha taalla in ay soomaalidu inay isku tashataan meesha taalla haddii la isku tashan waayana sidii shalay toole aan u arkaynay garbaciisoo la qaadanayo garbaciisoo la dilay dadkii oo la gowrgowracay dhibaatadii ka dhacday aan ognahay cadaytu wixii lagu yeelay sidii dadkii loogu gubay magaaladii la gubay sidii loo qaatay cundhufo sida yaree dhib yaree loo gacan geliyey cafarta waxaas tanna berri toole waa la cabaadi doonaa soomaali iyo reer sitina berri bay wax isweydiin doonaan intay goori goor tahay intaynan xeedhiya fandhaal kala dhicin weli waa la gaari karaa waa haddii shacabka ku nool city ay kacaan oy walaalahoodna gargaar weydiistaan oo ganacsatadu ay garab gasho oy dhallinyartu kacdo oy dhulkooga difaacdo maanta waan arkaynaa dagaalkii waqooyiga ka socday shacab yaroo tiro yar ayaa maadartay ummado malaayiin ay dagaal isku hayeen dee dagaalkaa maxay raggaa ay u kareen inay u jilib dhigaan waxay ahayd isku duubni iyaa dhicooga jirta xilligaa galbeedka city maanta inta berri la ooyin ee garbaciise cadaytu cundhufo dan la helay iyo dhulka weyn ee intaa leeg dhulka weyn ee iminka laga qaaday waa dhul baaxadiisu uu leegyahay haddii aan iminka qiyaasno 20,000 oo kilomitr kaare 20,000 oo kilomitr kaare dhul leeg weeyaan dhulka dadka reer miyiga laga soo barakiciyey intaa hadhayna waa intaa in leeg in laga barakiciyo la dooni daxlaha waxay u baahan tahay dadkani inay berri toole odhan nanooma sheegin maan ogeyn nanama wargelin iminkaan u sheegaynaa ciddii maanta halkaa ay dhegaysanaysa caawa oon leeyahay war hadday wax runiga yihiin dadka dhulkan ku noolow waxaa weeyaan waar han gurmano oo walaalaheen aan gurmano iminka halkaa marka laga soo farxasho waa erar wax la joogo dabadeed waa la soo soconon waa hadhagaale waa dirdhab dee intay halkaa la gaadhin ha la gurmado dadkanow waxaa kuu taalla inaad gurmado in arrintani aanad u qaadan wax yaroo sidanuuna waad arkaysaan cid dhankaale ma jirto etoobiya inta qowmiyadeeday jirtana cid ku ogolna ma jirto magacaad ku dhimanaysana waa magac soomaaliyeed hadalka anoo kaa dhexgalaya waxaan ku yidhaahdaa in waxaa jira arrimo dadka lagu mashquulinayo oo hadda waxaad ka hadlaysay in dhibaatooyinka galbeedka city xalka ay u baahan yihiin keliya ay tahay in la midoobo beelaha qaar galbeedka citygooda taga gobolka citygooda taga in iyaga dhexdooda dad hoosaasinayo oo inay isku diraan oo arrimahan galbeedka laga jeesto oo ay qowmiyadaha soomaaliyeed iska qabsadaan ay leedahay arrinta aad sheegaysidna waa arrin kusoo oogan oo soo eegaysa guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ka tagto deegaanka soomaalida arrinta iyada ah bal bulshada soomaaliyeed iyagu waxba aan kala haysan isdilaayay ee wax soona laftarkooda maxaad oran lahayd iyaga horta waxa weeye arrintaad ii sheegaysid waan fahmay anigu waxaan u arkayaa dadka waa la soo dhex mari karaa ummadda dadku ma wada xumo dadku
maad aragtay ma wada aha balaaf iyo maad aragtay dhuuna qaata ma wada aha laakiin dad lagu shaqaysan karo oo wax laga soo qaadan karo ya dad wax la siiyo iyaa qaabkan u dhaqma xilligaa isku dirna ka wada meesha xilligaa dadkaas meesha waxay ka wadaan wax la yidhaa waa isku dir xilligaa waa dad la isticmaalayo soomaalida waa in dad baa doonaya in dadka isku mashquuliyaan laakiin waxaas waa sheeko yaroo kooban waa wax basiida waxa dhexdeennaa waa wax la xallin karo soomaali maad aragtay inkastoo siday doonaya isku jiidho ay isdisho waxaa weeye haddana meel la kala tegaya ma jiro cadow ka weyn baa meesha yaalla xilligaa cadowgaa ka weyn unbaa in loo tashadaa